dhererkiisu waa inuu ahaadaa 10 feet iyo bar. muuqaalkiisu waa inuu qurux badan yahay. waa inuu ahaadaa nin caqli badan oo caafimaadkiisu aad u fiican yahay. markii Kuuriyada Waqooyi looga dhawaaqay qodobadan ma ahayn munaasabada tartanka boqorka quruxda dalkaasi, laakiin waxa uu ahaa ninkii loo goorin lahaa Kim Yoon, gabadha la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. waa kuwan siro badan oo ku saabsan hogaamiyaha dhabta ah ee Kuuriyada Waqooyi iyo amiirada sugaysa talada dalkaasi. tan iyo intii uu talada la wareegay walaalkeed, waxaa bilowday inay jagooyin sarsare ka qabato dalkaasi oo aanay hore haweeney uga soo qaban Kuuriyada Waqooyi. isla waqtigaasi warbaahinta waxay kaga soo muuqataa inay tahay barbaariso nabadda iyo mid jacayl daran u haysa howlaha khayriga laakiin kaamirooyinka gadaashooda waxay ka wadaa olole ay ku nadiifinayso kuwa mucaarada ku ah xukunka walaalkeed. cidna ma garanayso taariikhda dhabta ah ee dhalatay, laakiin qaar ka mid ah warbaahinta waxay sheegayaan in dhalatay 1987. walaalkeed Kim ayay wax kula baratay wadankaasi Switzerland, kadibna waxay ku laabatay Kuuriyada Waqooyi si ay u dhamaystirto waxbarashadeeda jaamacadeed, gaar ahaan jaamacadda Kim Il-sung. ma jeclaysan in badan oo ka mid ah ardaydii ay wax kala baratay jaamacadda. waxay amartay in la dilo dhammaan gabadha Kim Yoo, ama si kale haddaan u dhaho gabadha dhaxal sugaha ka ah Kuuriyada Waqooyi. waa gabadha ugu yar hogaamiyihii hore. waxay u dhashay xaaskiisa saddexaad, midda ku caanbaxday qoobka ciyaarka ee Kim Yoon Hee. waxay leedahay 2 walaalood, Kim Jong Un iyo Kim kale oo mu'amaradu u maleegeen siday talada dalkaasi u dhaafin lahaayeen. waxay ku sheegtay inuu waalan yahay oo maankiisu bedelan yahay waqti kasta. gabadhan warbaahinta waxay ka soo muuqatay markii ugu horeysay sanadii 2011 kadib geerida aabaheed. waxay ku hogaaminaysay ragga waaweyn ee dawladda. munaasabada janaasada aabaheed kadib si degdeg ah ayay jagooyin isugu dhaaftay, waxaana ay noqotay shakhsiga labaad kadib walaalkeed Kim Jong Un. marka laga hadlayo ahmiyadda talada iyo weliba awoodda kale ee dalka way hantiday, waxaa la sheegaa Kim inuusan ku kalsoonayn ilaa iyada maahane waxay ka dhigan tahay la taliyihiisa kaliya. waa midda saameynta ku leh in badan oo go'aamadiisa ka mid ah. go'aamadii ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen in la cirib tiro qoyska uun nafsadiisa. waxay amartay dilka sayga habaryarteed, mas-uuliyiinta hurda iyo kuwa aan u sacabtabin waqtiga uu qudbaynayo walaalkeed. qasadka sheekada halkan waa madaxweynaha Kim. iyadu waxay ahayd qofkii hidisay fakarka kulanka walaalkeed uu la yeeshay Trump. waxay hogaaminaysaa wadahadallo nabadeed oo ay kula jirto koonfurta Kuuriya. munaasabado badan ayay la soo muuqataa walaalkeed ama safarada yar ee uu banaanka u baxayo. horey uma dhicin taariikhda Kuuriyada Waqooyi in gabadh ay ka taliso ama jagooyinka ugu sareysa ku fariisato ama xitaa kuraasta ugu sareysa xisbiga talada dalkaasi. laakiin maanta sheekadu waxay u muuqataa mid aan wado kale u furnayn. waqti dad badan ay u arkaan walaalkeed mid lagu maadaysto, haddana Kim Yoon waxaa loo arkaa wajiga cabsida leh ee dalkaasi. inkastoo Kuuriyiinta hortoodu ay isku dayday inay u dhoola cadayso lagu daray doorkeeda siyaasadeed ee dalka, haddana waxay mas'uul ka tahay faafinta iyo cilaaqaadka arrimaha dibadda. gabadhan waxaa waajib kugu ah inaad xifdido magaceeda, maxaa yeelay maalmaha soo aadan in badan ayay dhagahaagu maqli doonaan. waxaa la rumaysan yahay inay tahay fikirka ka dambeeya dacaayad u samaynta iyo muuqaal wanaajinta walaalkeed Kim. markii laga hadlayo nolosheeda gaarka ah 2012 waxaa Kuuriya ka dhacay dhacdo u ekayd munaasabad tartan ah, taasoo lagu dooranayay ninka munaasibka ku ah guurka walaasha hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. waxaa lagu xujeeyay shuruudo adag. waxaa buuxiyay shuruudahaasi 30 iyadoo ay munaasabada doorasho iyo kala xulistu socotay 2 sano ilaa uu yimi sanadii 2015. waxaa la iclaamiyay gabadha Kim Yoo in lagu guuriyo wiil uu dhalay mid ka mid ah hogaamiyaasha xisbiga. waxay u dhashay hal cunug 2016. munaasabadaha siyaasadda ilaa iyo kuwa mucaarada ku ah nidaamka dalkaasi inuu qabanayo shaqadii looga baahnaa iyada iyo waajibaadka xaaskiisa, halka iyadu ciyaarayso doorka siyaasadda. miyaysan suurtagal ahayn daawade wararka ka soo baxaya caafimaadka Kim Jong Un inaan niraahno gabadhan Kim Yoo waa boqorada cusub ee Kuuriyada Waqooyi?